aad baan arintaas ugu qanacsanahay haddaan nahay xildhibaanadii dawladda federaalka Soomaaliya run ahaantii arrimo masiiri ah oo qaarkood ay naga qarsoonaayeen ayay golaha wasiirada ay soo bandhigeen qof kasta oo muwaadin ah ama mas'uul ama ahaanina in isku qancana waa habboon tahay sababtoo ah qodobka 26 farqadiisa koowaad ee dastuurka xukuumadda ayay u igmanaysaa muxuu ahay damaanad qaad buuxda ay siinaysaa in amniga iyo gobonimada Soomaaliya ay damaanad qaado marka in muxuu ahay lagu taageero waajibkii dhabta ay ka soo baxeen qodobka 27 farqadiisa koowaad xarafkiisa baarne wuxuu aad iyo aad u dhiirigelinayaa ku dhaqanka sharciga in sharciga dalka u yeela la hirgeliyo oo lagu dhaqmo wax weyn waaye ciidanka amniga inay shakhsiyaad noocaas oo kale ay soo qabtaan oo ay sharciga soo waafajiyaan aad iyo aad baan ugu amaanay siyaasiyiinta danaha gaarka leh ama xildhibaan ha ahaado ama yuusan ahaanin inay shacabka Soomaaliyeed qalubtooda ay walaac gelinin oo ay dhibaato iyo waxayna jireen ay u iftiinin ayaan mar labaad arintaas ugu baaqayaa sababtoo ah shacabku dawladdan shacabka iskale shacabka Soomaaliyeed shalay markii wax dooranayni qalubtooda anagoo aad ugu dhawaanayna ayaan wax ku dooranay maanta in shakhsi dan leh oo awrtu ku kacsado oo yiraahdo wax baa fashilmi iyo wax baa ajajabay iyo wax baa muxuu ahay burbursan wax loo qaadan kara oo runtii shacabkeenana ay yeelayeen maaha anigu waxaan qabaa shacabka Soomaaliyeed horta inaan lagu mashquulinin walaahow aan sal lahayn shacabka Soomaaliyeedna runtii dad aad ula socda siyaasadda social media waxa loo isticmaalaa si aad u gurcan oo fiicnayn si shacabka loo wareeriyo laakiin si wanaag shacabka Soomaaliyeed wax badan uu fahmaya Soomaalida Ethiopia ku nool kelinka shanaad waxay dalbayaan inaan dekada siino waxay rabaan in dekada hobyo u furno waxay rabaan dekada Cadaadeen aan u furno waxay rabaan dekada Warshiq iyo dekada muxuu cilmacaan intaba inaan u furno waxay rabaan in muxuu ahaa highway ka soo bax halkaas ee dekadaas tagaan waxay rabaan in dhaqaalahooda meesha uga soo dago waxay rabaan 8 milyan 9 milyan oo Soomaali iyo Etoobiyaanka ee la ganacsan waayay dhinaca kale ku xirmi waayay inaan ku xiranay rabaan waxaasay rabaan maanta jabhadeen iyo xorriyeyn iyo ONLF iyo waxaas ma rabaan annagana intoo kale aan la rabnaa inaan la dhaqaalahaas aan taabgareyno iyaguna ay mataqaana aan la ganacsano aan badsiino iyagana mataqaana aan dhaqaalahooda iyo populationkooda u dhacno intaan way inta la rabo xukuumaddan waxaan ka rabnaa inay dariiqaas ay namarsiiso aysan meelo dhaxan ugu laablaabin iyo wararkan ku turkiteynta aan loo hakanin bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la dhahaa Faysal Cabdulla Guuleed waxaan ka tirsanahay golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa maanta inaan taageero iyo soo dhaweyn go'aankii golaha wasiirada ee masiiriga ahay ay shalay soo saareen waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay dawladda la shaqeeyaan dawladdu waa dawladda shacabka Soomaaliya ay doorteen waxa laga rabaa mar walba wax kasta oo jira dawladnimadeena iyo qarannimadeena ayaa ka weyn waxaan kaloo rabaa cid kasta oo wax tabanaysa inay qaranka Soomaaliya oo inoo yahay birmageedo marna aysan dhicin in dibidhacii 27 sano aynu ka harnay dunida maanta oo aynu helnay madaxweyne inoo adeegaya ku shaqeynaya shacabka danahooda kana shaqeynaya iyo ra'iisul wasaaraha isla shaqeynaya waxaan rabaa inaanu si hagar la'aan loo garab istaago intaas ayaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan la wadaago